qaramada midoobay ayaa ku dadaalaysa sidii kooxo ka tirsan ay ku tagi lahaayeen gobolka Tigreega si ay baaritaano ugu sameeyaan xadgudubyada xuquuqda aadamaha ee la sheegay oo ay ka mid yihiin dilwadareedyo ka dhacay gobolkaasi taasi oo madaxa xuquuqda aadamaha ee qaramada midoobay ku tilmaantay mid ka mid ah xadgudubyada badan ee xuquuqda aadamaha ee argagaxa leh kuwaas oo noqon kara dambiyo dagaal ciidamada Itoobiya ayaa muddo 6 toddobaad kula dagaalamayay xoogagga godolsan ee TPLF gobolka waqooyiga ku yaala Tigreega dagaalkaasi oo barakiciyay 9 milyan iyo 50,000 oo qof inay shaqaalaha samafalku ay tagaan gobolka ayaa ilaa iyo maalmihii la soo dhaafay ahayd midaan suuragal ahayn iyadoo shaqaalaha xuquuqdu ay haatan raadinayaan inay tagaan gobolka si ay u xaqiijiyaan wararka la xidhiidha xadgudubyada haddii dad rayida ay si ula kac u dhinac amaba labada dhinac ee dagaalamayay u dileen dilalkaasi waxay la mid noqonayaan dambiyo dagaal waxaana loo baahan yahay inay jiraan sidan horeba ugu nuuxnuuxsaday baaritaano madax bannaan ixla'aan dhammaystiran oo hufan si loo helo isla xisaabtan iyo xaqiijinta cadaaladda ayay tiri Michel oo ah madaxa xuquuqda aadamaha ee qaramada midoobay dhacdooyinka ay xustay waxa ka mid ah dil la sheegay 9kii November 200 oo qof oo u badan qowmiyadda Axmaarada lagu dilay magaalada ku taala waqooyiga galbeed ee gobolka Tigreega $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana waa ku bilaash isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyga Somaliland haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 eber 8 afargees ama xidig 2 eber 2 afargees tayo waa Telesom ma ogtahay inay Somtel bilowday abaalmarino cajiib ah oo ay macaamiisheeda ugu tala gashay waxaa ka mid ah abaalmarinahaas dahab microwave TV iyo mobilo dhammaan shirkadda Samsung ah account lacag ku jirto oo banka dahabshiil ah dalxiis aad ku degto hoteelada Damal iyo waliba 10 gaari oo Hyundai cusub ah kuwaas oo qaar ka mid ah gaarayaan qiimo $30,000 intaas iyo xidhmooyin kale oo guud ahaan 5,000 oo abaalmarinood noqonaysa waad ku guuleysan kartaa waxa aad ka mid noqonaysaa liiska tartamayaasha haddii aad ku shubato ku hadal ama aad ku shubato internet ama aad tahay qof ka ganacsada ku shubashada ama aad tahay qof u adeegsada dahab qaab shakhsi ah iyo qaab ganacsi ah ka qaybgal macmiil oo ka mid noqo guuleystayaasha si aad u hesho xog intan ka badan fadlan garaac 333 ama 111